sibad ballaadhan oo lagu soo bandhigayay buug la yidhaah tayada aqoonta ay qortay Sahre Jaamac Xaydle oo ah gabadhii ugu horeysay ee qoraa ah ee buuggeeda ku soo bandhigta magaalada Burco ayaa xalay lagu qabtay hoolka jaamacadda Burco. Munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen naadiga akhristayaasha ee halkan Riddles Club ayaa ka soo qayb galeen maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad ku-xigeenkiisa Mastar Xoday, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco, abwaano ardayda jaamacadda Burco, mas'uuliyiinta naadiga halkan iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha naadiga halkan Ibrahim Cabdi Xamari, waxaana uu soo bandhigay tirada buugaagta ay soo bandhigeen naadiga muddadii uu jiray, muddadaasi oo 5 sannadood ku dhoweyd, waxaana aad ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay akhriska iyo qoraalka oo la joogteeyo iyo dadaalka ay qoraaga da'da yari samaysay. maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad iyo ku-xigeenkiisa Mastar Xoday oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad ugu dheeraaday muhiimadda ay xambaarsan tahay aqoonta, iyagoo ka sheekeeya farqiga u dhexeeya waxbarashada waqtigii hore iyo maanta, iyaga oo si weyn ugu bogaadiyay una dhiirigeliyay qoraaga buuggan Sahre Jaamac Xaydle oo ay ku tilmaameen inay tahay inan karti badan, waxayna ballan qaadeen inay caawin kuna dhiirigelin doonaan aqoonta iyo buugga ay qortay, iyagoo dhinaca kala ballan qaaday in naadiga halkan qayb weyn ka qaadan doonaan xarun buugaagta lagu kaydin doono oo ay yeelan doonto bulshada ku dhaqan magaalada Burco. ujeedada ku jirta waxyaalaha laga faa'iideeyo inaan madalano aan kala soo diyaarino oo aan u taageerno qoraaga iyo akhristu inay isku bartaan. naadiga akhriska ee halkan waxaa la aasaasay sanadii 2009 bishii 11 la aasaasay. intaa uu jiray muddo 5 sano uu jiray, 5 sannadood naadiga akhriska ee halkan uu soo bandhigay 50 buug tiro gaaraysa 50 kala buug oo leh nooc walba. berigii hore waxaan soo bandhigi jirnay qoraayada dibadda inay ka yimaadaan buugaagta ay qoraan. waxaan soo bandhigi jirnay qoraayada waaweyn ee Soomaaliyeed ee caanka ka ah inaan u yeedhno gobolka keenno dhalinyarada fursad u siino ay isku bartaan. waxaanu ka bilownay halkaa muddo dheer baan soo bandhigaynay qoraayada ka yimaada Yurubta ka yimaada qoraa kastoo caan ah oo Somaliland ah ama gobolka Togdheer u dhashay. waxaan u qaban jirnay xaflad inaan u qabanno dhalinyarada soo fadhiisino ay dhageystaan wixii uu qoray, sababtii uu qoray, su'aalo ka weydiiyaan, halkaa macluumaad la isku dhaafsado. maadaama maanta aynu 6 sannadood soo wadnay akhriskii qoraalkii, waxa hadda aanu ku guulaysanay oo naadiga akhriska ee halkan ay ku guulaysteen ama ay ka midho dhaliyeen inay soo saaraan dhalinyaro badan oo iyagii qoraaya ah. dhalinyarada maanta qoraayada ah ee gobolka Togdheer ka soo jeeda 80% ama 90% waxaan oran karaa waxay ka tirsan yihiin naadiga akhriska ee halkan. weliba hablaha waxaana weliba jecela hablaha inaan markii wax qorayaan taageero siiyo. haddii aan nahay dowladda hoose degmada Burco, waxaan idinka taageeri doonaa aqoonta, waxaan idinka taageeri doonaa adduunka, waxaan idinka taageeri doonaa waayo aragnimadeeda aan u leenahay education aan u leenahay. Sahra aad iyo aad baan soo dhaweynaa. wixii ka dambeeyay waxaan leeyahay hablaha wax qoraya waa in inta aan buugga soo saarin si aan gacan u siino, waayo ardaygu haddii aan la tashjiicin ama aan lagu samayn wax la dhiirigelin aanu helin cid uu dabada saaro, waxay noqonaysaa inuu iska noqdo uun dee niyadiisu aanay moral sidaan idiin dhisno. ardayda anigoon kala saarinin ee wax qoraysa oo maanta doonaysa wax dhaxalgala in dalka uga tagto, weliba waxaan u sii laban laabaya waan caawa halkan uga ballan qaadaya hablaha wax qori doona inaanu gacan siin doono, maskaxdeeda ku caawin doono. halkan oo aan runtii ugu hambalyeeyo Sahra in lagu daydo inay mudan tahay buugga dusha aynu ka akhrinay in la ogaado buugga qiimiga gudihiisa ku jira oo la akhriyo. waxa uu qiimo weyn u yahay in qoraay laga soo baxo, waxa uu qiimo weyn u yahay fikirka iyo aqoonta Sahra ay ku qortay buugga in la ogaado xikmadda iyo macnaha uu leeyahay. waxaan kula dardaarmayaa buugga inay iibsataan, waa laga helayaa meelaha kolley shoobada ah, akhridaan si idinkuna maskaxdiina iyo aqoontiinu
sahro kale uu runtii u higsada uu gaaro. Abukar Carabi oo ka mid ah xubnaha naadiga halkaran oo buugan soo akhriyay ayaa madasha ka soo jeediyay qaybaha uu buugani ka kooban yahay, nuxurka uu xambaarsan yahay iyo taariikhaha dhinaca waxbarashada ee ku duugan, iyadoo ay sii faahfaahisay buugan iyo ujeedooyinka loo qorayna oo ay ka sheekaysay qoraaga buugani Saare Jaamac Xayd, iyadoo ku tilmaamtay dulida buugani yahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo marxaladaha kala gedisan ee uu soo maray. sababtu waxay ahayd waxaan ka tegay halkan, waxaan tegay wadankan ilaalada dariska ah ee Yaman la yiraahdo, marka halkaas ayaan wax ka baranayay. markii aan u jiray waxbarashada waxaan arkay farqi weyn oo u dhexeeya nolosha halkan ka jirta sida aynu inagu wax u barano iyo sida halkaa wax looga baranayo. marka arrintaasaa su-aalo fara badan u dhalisay. maxaa ina kala duway inaga, maxaa sidan naga dhigay? dhibaatooyin fara badan baan arkay oo waxbarashadeena haysata oo aan kuwa dunida kala haysan. maxaa inoo sababay? wala waynoo nahay inay dhaqaaleeyaan jirto inaan dalka la ijraafin, laakiin waxyaabo kala jira. marka waxyaabaha waxaa ka mid ahaa tayo la-aan waxbarashada haysata. sidaas awgeed ayaan doortay inaan magaca buugga ka dhigo tayada aqoonta. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay abwaan Cabdisalaan Caaradhoob, Cumar Axmed Cabdilaahi oo ku hadlayay afka ardayda jaamacadda Burco, Cabdisitaar oo ka mid ah asaasayaasha dugsiga Smarty, Najmo Cumar Cashuur oo ah gudoomiyaha urur ka samaysan dugsiga Smarty oo la yiraahdo Smarty Lateral Group, iyo Xamdi Xuseen oo iyana ah gudoomiyaha Smarty Charity Foundation, iyagoo ka sheekeeyay ahmiyadda uu buugani xambaarsan yahay, iyagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan buugani, waxaana uu ku bogaadiyeen qoraaga buugan dadaalka ay ugu jirto sida ay bulshada aqoonteeda u gaarsiinayso. gabagabadii waxaa halkaasi qoraaga lagu weydiiyey su'aalo ku saabsan buuggeeda, waxaana mas'uuliyiinta naadiga halkaasi shahaado sharaf iyo jahaysooyin ay ku maamuusayeen guddoonsiiyeen qoraaga, halka ay qoraaguna ay guddoonsiisay naadiga halkaran 5 buug oo ka mid ah buugga ay qortay. Khadar Cabdirasaaq Suleybaan, shabakada caalamiga ah Wanaag News, magaalada Burco.